kiin baryarta wiilka magacayga uu sheegay Leila cali Elmi baa leedahay MP baan hadda ahay am a member of the parliament am a xildhibaan oo u jeeda Soomaaliga iyo Englishka wala isku qasiyaa anigana waa isku qasiyaa marka and waxa weeyaan my second term baa hadda I got elected in September for the second time run ahaantii it's been 4 interesting years يعني 4 sano oo achieve and actually I'm not only the first Somali woman to sit in the parliament of Sweden, it's actually Europe. Just the facts, you know, the facts. Marka wa mahadsantihiin. And this is the thing, I think my thing is politics, so I'm not here to actually talk about politics. I'm here to somehow inspire you guys, or yeah, that's the meaning of it. So it's not really my lane, but I'm going to try to do that the best I can. And run ahaantiina and arinta hadda maanta laga dhawaajinayay ee ahayd yacnaha in qofku uu riyadiisa ka dhabeeyo ama riyadiisa rumeeyo runtii waa wax saxa waayo qofka if you can imagine it, if like in your head, if you can imagine something, you can do it. I think that's what I basically believe. And qofku waa inuu taa aamini karaa oo naftiisa ku kalsoonaan karaa. And it's not wax sahlan ma ahan marka xaqiiqda la fiiriyo. waxaan leeyahay wax sahlan ma ahan maadaama aniga I grew up as many as you as a refugee ma fahantay yacnaha waalid soo qaxay waalidan yacni aan shaqaynin waalid aan yacnaha aan ku noolayn yacnaha nololaha inagu aynu ku riyoonayno markaynu yarnahay ama markaynu weynahay riyadu ma dhamaato daa ma lahan in fact qofku markuu doono wax baran karaa markuu doono wax noqon karaa and inta badan dadku waxay ka fakaraan okay anigu waxa weyn waa weynaada hadatan Chinese-ka way dhaafay wax ma baranin inta naf ay kugu jirto Chinese baa haysataa every day aad soo toosto Chinese baad haysaa runtii yani qofka bini'aadamka waa inuu taas aaminaa naftan Ilaahay kuma ballan qaadin so every day that you wake up waxa weeyaan waa hadiyad Ilaahay ku siiyay waa inuu qofku marka I believe in gratitude yacnaha in qofku yacnaha uu ka mahadnaqo yacnaha horta inuu nool yahay oo naafsanayo marka ugu horeysa because many times dadku waxa weeyaan we take shit for granted, excuse my French, laakiin waxa weeyaan yani qofku waxa weeyaan inuu siraado 10 sano ka bacdi waa joogaya waa noolaanaya no lama oga hadda inaan maanta halka ka baxdo laamka goysayna noolaanaysid naftan adaa iskale Ilaahay baa ku siiyay so waxa weeyaan qofku waxa weeyaan waa inuu naftiisa marka uu adeegsadaa the best way uu adeegsan karo naftiisa waxay doontaa ha ahaato no dream is small no dream yana bigger than the other dream laakiin qofku waa inuu helaa okay maxaan anigu aan rabaa idina qofba makhaayad furanaya qof kale ka dhinac furanaya makhaayad hadana qof kale hadana makhaayad ka dhex furanaya yacnaha way fiican tahay in la isku daydo. Like sometimes you have to find your own lane because متقنا قفك مركو هلا معنيهيسا يعني his purpose مركو قفك هلا it will be easy يعني how why because وحن أذي معنى كل لين أذي قيمة كل لين it's not going to be hard to wake up in the morning ما فهمتي when you're doing something that aligns with your soul مركا أنا كلي دنيا الصومالية waxaan rabaa inaan u sheego run ahaantii wadnahayga yacnaha waxaan dareemi karaa in ay dad badani aysan haysan role models. I did not have it and waalid lagu daydo dad waaweyn oo lagu daydo dad waaweyn oo yacnaha that inspires us to be better and greater man and haysan laakiin be that person, you know, be that person because waxa weeyaan dadka hadda the next generations jiilalka soo koraya they need that. Okay, we were unlucky wadankeena dagaal baa ka dhacay and our parents did good by us. Even wallahi anu waxaan aaminsanahay the worst parent did good because you know it's not easy qofku inuu soo qaxo inuu yimaado wadan uusan garanaynin in to start scratch from life ma fahantay in a place that doesn't really welcome you. And most of you, because you're black, you're Muslims, and especially hijabis, we encounter racism
even amongst يعني dadka kale inala muslimka inala qaxootiga. So معناها the spaces that we don't have a lot of safe spaces. And we don't have a society that is encouraging us to be our best. So we have to encourage each other. وإن إنه إسكو شاقنا. وإن إنه إسدير قلنا. قف والالك يا مركا أركتي that he's doing something. يعناها be a good, be like a friend, be a supporter. Because وحويان most of the time وحوان قفكم مركو وحسمينيو. Your surroundings will say to you, waxa ma shaqeynayaan, it's too hard, that's too complicated, blah blah blah. Hadgeysanina kuwaas. Dagaha ka qofushta. Waa taladayda because mataqaana. And don't take advice from people that haven't done what you're going to do. Ha ka qaadanina talo. Because aniga hadda hooyaday ku dhaho hooya I want to be an astronaut. Igu tiraahdaa astronaut-kaaga ma aqaan. She doesn't know shit about that. Marka, if you want to be a writer, find a writer. Talk to that person because that person has done it. If you want to be an astronaut, find an astronaut. Talk to that person. Take advice from that person. Basically, waxa weeyaan anana truly waxaan aaminsanahay everything is possible. I'm going to leave you with a quote because and a book recommendation because books are really good. And because why they are good, I know how, and I'm going to explain it because you know the brain is a muscle. Wa muruq maskaxda. Muruqan hadaadan isticmaalin, it's not going to be efficient. It's not going to be at its best. And a way to use your brain is actually to read. And you don't have to read something that is معناها and it can be fiction, it can be fantasy. But so long as you activate that brain and you do, that's the main thing. Marka, this is the quote. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. This is from the book The Alchemist by Paulo Coelho. I will of kasta oo dream leh that wants to accomplish something in life. I sincerely recommend you to read that book because it will inspire you more than me. Waa mahadsantihiin.